بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أحمد نور محمد عبد الله لما أنا أمد الصوماليات جبي أهان جودة يدبدبا وأن سلام يا سيدا أديك برتين وحن إذين شيء دونا وحيابها أنا إحساسي لينا أيو أنا قضبين دونا مركا وجوه الرئيسة شعبي وصلدقة يا آسكا دولة نمو شعبيغو ayaa soo doortay baarlamaanka hoose iyo baarlamaanka sare labadaba ayaga doortay marka shacbigu waa in mar walbaba ay ogaadaan awoodda dawladda sare ay leedahay ayaga inay hoos timaado gobol bayna waxba ka maqlaynin dawlad goboleedyada dawladda dhexe haday qaloocato qalooca waa toosinaysaan waxa weeye nin allaale ninkii mas'uul ah ama gobolada ha ahaado ama ha ahaado dawladda dhexe ee aan ka baxaynin waajibkiisa haddaad golaha shacbiga kan hoose iyo kan sare aad tihiin idinka awood u leh nin quman oo wanaagsan oo Soomaali ah hala keeno bedelkiisa waxa weeye ha u malaynina in aad jilicsan tihiin inaynan awood lahayn inaynan maaragtaa tabar lahayn idinka awoodda iyo tabarta ilaahay idin siiyay hase yeeshee dhammaan labada aqalba ee baarlamaanka kan sare iyo kan hoose mar haddii la idin dhaariyo kutub jaamaca la idinku dhaariye ilaahay ka cabsada qabiil ha fiirinina kaas waa qoladaas qoladayda weeye asaga ay soo doortay asaga ay keenay asaga waxa iska dhaafa waxaas waxa weeye haybada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed hooyada iyo dhalaanka iyo odayaasha dhibaataysan ee wareerka iyo qarankeennii oo la rabo in la burburiyo idinka ayaa maanta shacabka Soomaaliyeed oo dhan mas'uul ka ah marka waa inaad noqotaan dad sharciga ku adag sidaas yeela waxa ay soo hartay dawlad goboleedyada runta inii sheegaya qudbooyinkiinii shanta ninba waan dhageystay anigana ballan waxaan ku qaaday wixii sax igu muuqda waxgaradkana sax ugu muuqda inta waxgaradka ah ee Soomaaliyeed inaysan waxba idinka qarinaynin ee inii sheegayaan waxa weeye qaabkii aad sugu timaadeen iyo qaabkii go'aanka aad u gaadheen iyo qaankii nin madaxa aad doorateen waxaas waxa weeye waa humaag waxaad aniga idinkula talinayaa sharcigii lagu qoray xataa hadduu ka dastuurka dawladda yahay hadduu yahay mid aad suubsateen anigu sharciyaqaan baanahay waa qaldan yahay wixii ku taliyeyna qalad iyo kadeed iyo kamiraysi ayay ugu talagaleen ummadda Soomaaliyeed ah dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada marka dawlad goboleedyadu shirayaan waa inay la shiraan si toos ah ayagoo meel kale u laalaaban dawladda dhexe halkaasna go'aanka lagu gorfeeyaa taa waxa weeye aragtida bini'aadanka cayaar ma aha mala rag waa nooli baa la yiri hadduu qofku garasho iyo dareen leeyahayna cayaar ma aha awal bayna soo martay dawladdii ka horeysay in la baabi'iyay dhammaan awoodihii baarlamaanka oo dawlad goboleedyadu ay wixii oo dhan la wareegeen tiiba hadeer socota iyo nidaamkeedii joojiya inay wariyaaya joojiya annaga ummadda Soomaaliyeed waxaan ku soo baranay dhiigoodii iyo hantidoodii qoryaha naagtii qaadaysay qofkii dumarka oo qaadayay canshuurtii la qaadaya wax ku soo bartay anoo wax garanayana ilaahay way igu cadaabaya inaan aamuso waxaan in leeyahay u kaca dalka difaaciisa u kaca iska dhaafa waxaan kale oo dhan dalka difaaciisa u kaca shabaab hala ciribtiro dadka yagii buu baabi'iyay dadka yagii buu laayay min Puntland ilaa Kismaayo ilaa Xamar ilaa Baydhabo meel kastaba huf iyo halan jirin bay dadkii ka dhigeen
marka waxa weeye isku wada duubta oo hal dalka sharafkiisa iyo karaamadiisa ummadda Soomaaliyeed hal la ilaaliyo baa weeye dadka qiimeeya dadka dadnimadeena dadka aad tusdo caalamku waa na fiirsanaya aqligeena aan ballaarino aragtideena aan ballaarino si fiican wax u arka kaca in ilaahay laabtana ka kaca maskaxdana ka kaca waxaan soo gelayaa doorashada waqooyigu xaq waa u leeyihiin inay isdoortaan balse dadka aan doonaynin inay doorashadaas ka qayb galaan fadlan ha dhalinina wax la isku diriro colaad ha ka dhalinina ummadda gudaheeda waayo dhiigga Soomaaliyeed cayaar ma aha idinkana ninna yuusan ka dhimanin dadka kalena ninna yuusan ka dhimanin qofkii aan doonaynin doorashada inuu ka qayb galo faraha ka qaada dhammaan meelaha aad degan tihiin oo dhan dadka idinla degan ee ka soo jeeda qabiilada kale ee Soomaaliyeed hadday iyagu go'aansadaan inay dhinacani ka istaagaan ha ku khasbinina qoorqabad biyaha kuma cabaan qaanka xooluhu aniga ma arki karaayo nin Soomaaliya qolo kasta u dhasho oo dhiig ka daadanayo waayo waa ahbalnimo waa aqli xumo waa garaad xumo waa dadnimo xumo waa fiiri gaabni iyo xisaabtan la'aan ka cabsada ilaahay iyo qabriga waxaan ku soo gabagabeynayaa xukuumadda Soomaaliyeed mucjisooyinka aad la kulanteen dhibaatooyinka aad la kulanteen turunturooyinka aad la kulmaysaan ee taakada la idin dhigayo ee nooc walbaba marba waji loo yeelayo sabir u yeesha dulqaad u yeesha waayo sabirku salaada asaga ka horeeya waayo qofku salaad ba tukan karo hadduusan sabir iyo qalbi fiican lahayn sabra in leeyahay dadka idinku hareeraysan waa dad Soomaaliyeed laakiin qaarkood lagu adeeganayo qofku jirkaaga waa leeyahay laakiin qalbigiisa waa lagu adeeganayaa waxa weeye waa in shacabka in doortay shacabka aad kor u qaadaan aqoon baad leedihiin garashaad leedihiin dareen baad leedihiin socda waad fiicantihiin waanad guuleysanaysaan ilaahay idanki annagana ummadda Soomaaliyeed ayaanu garab iyo gaashaan uga nahay dibadaha aan joogno waana soo hadlaynaa intaas si aan ummadda u baraarujino waayo ummaddu markay wax tahay baan anigu waxay ummaddu markay sharaf leedahay anigu sharaf leeyahay Soomaaliya markay dhaqaaqdo ayaan anigu dhaqaaqaya oo qiimo yeelanaya oo haybad yeelanaya hadalkaygu waxaan ku soo aruuriyay ilaahay hayni garab galo dawladdaay wixii dudubooyin iyo buuro inin ka hor yimaada ilaahay dabayshahay inin kaga qaado ilaahay ha inin fududeeyo awooddaasna ilaahay shacbiga ha geliyo shacbigu mar hadduu isku niyad yahay oo isku qiimo yahay shacbigu ama ha joogeen Puntland ama ha joogeen Kismaayo ama ha joogeen Baydhabo ama ha joogeen waqooyi shacabka Soomaaliyeed ama ha joogeen maxaa hayto meeshii la jiray Boorame meel kasto ay joogaan shacbiga waa idin taageersan yihiin shacbiga qalbigooda waa laga warqabaa kaca ayaga in doortay meel walba waa laga dabaaldegay maalintii la idin dooranayay socda in leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh